ayay haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed iyo dhismaha hannaan doorasho qof iyo cod ah oo cadaalad ku saleysan. Wadankan waxa soo badbaadiyay inta badan dhexda u soo xirtay oo rafaadka iyo dhibaatada ku soo shaqeeyay waa haween Soomaaliyeed. Haweenka inta badan way isku xiran yihiin waxyaabaha na hortaagana waxay tahay raggu miiska markii la wada yimaado waxay dhahayaan gabar Soomaaliyeed Soomahan haade guriga ku fiican tahay inay wadanka hogaamiso ama ay siyaasad ka qayb qaadato ama ay doorkan kursigan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay maamusho kuma wanaagsana. Marka aniga ra'yigayga waxaan dhihi lahaa ragga Soomaaliyeed ayaa hortaagan dumarku boqolkiiba 30 la dhahaa qoondadooda laakiin boqolkiiba 60 way gaari karaan wayna isku xiran yihiin laakiin waxaan soo jeedin lahaa inay ragga ka wareejiyaan dumarka. caqabada ugu weyn maxaa dhihi karaa yani qabiilka oo yahay yani in haweeneyd inay siyaasad ka mid noqoto oo loo fiirinayo arin qabiil inay tagto nabadoonkeeda ama kala wada dhaqameed ay u laabato midaas bedelkeedna wada dhaqameedka gabar masiina hadii xitaa lacag haysto xitaa muxuu dhahayaa yani wiilka ka fiican ama wiila abqolowe hamata amal midaas darteeda haweenka Soomaaliyeed way ka mid noqon karaan siyaasadda caqabad ay ku noqon kartaa dhanka kale caqabad ku noqon kara maxay way inaysan haweenka ayaga isku dhiirigelin yani inay siyaasad ku biiraan iyo waxyaabaha seeto kaliya oo ku fiican tahay qoyska iyo guriga iyo waxa seeto kaliya inay ku fiican tahay caqabad kale inta maxay noqon kartaa diinta ayadoo yani oo diinta islaamka oo gabadha inay horumar sare ka gaarto ama siyaasad ku biirto aysan ahaynin bulshada Soomaaliyeed maxay ka dhigaan yani diin ahaan inay gabarta guriga ku jirto ama aysan soo bixin siyaasadda inay soo qayb galin. waxaa la sheegay doorasho iyo qof cod iyo alla sheegay aniga waxaan ka mid ahay gobolka Banaadir dadka koow u tagay inay kaar helaan aniga oo yaraan caruurteedii iyo 20 ku dhow angeen waxaan kaar lagu codeeyaa la soo qaadana mustaqbalka lisweydinana keena waxaa leeyahay gobolka Ligiri inta ma aha cariiray noqotay waxaad aadaysiin degmooyinkiina Newcastle inta ka dadka ka batay waa inoo soo ceydiyay muddo haddaan joogna degmadii aan tagnay degmadii aan feel u galnay على قف صدن دورنا نجا بعد على قف صدن دور شن إلا باتن وعد الشدي ورقد سجناتي إلا الشدي حداد باسبور لا هي أو باسبور كده أحسنين شن دولار كاب عيسى هدو باسبور كده أحسنين شن دولار كاب عيسى هدو باسبور كده أحسن هي ورقد الشدي سجنات سو جوسر عيسى شن إلا باتن يشن أي إقادة ما قوة صدن قف كيف صدن لا يلا باتن عن اليوم ودي مع الهوينك بقي maxaa u dan lahay eedaa naga baato waxa leeyahay odayaashan ida mintaqana afar jabla waa odayaashan waxa way lacag raadis waa odayaashan future kayn mustaqbalka dalka ku dheelay odayaashan waxa way culays aniga marka waxaan rajaynaynaa inuu culays naga degay oo mintaqana ummad siman ay timid oo cadaalad ay timid oo ninka aad rabta aad doornayso wariya 1 2 3 4 ka doonta aad dooran kartaa qofka doonto waa ka wariya codkaada waa ka haddaad gadan lahayd iyo haddaad fi sabiila ka dhinayd intaanu kursi taala oo xor u tahay waxaan aragnay dhibaatadaas waxaan maraynaa anaga odayaal dhaqameed nahay oo laga ooyay oo leeyahay dalka meel ay ka rideen dalka dhibaatay ka dalka meel ka marin wadanka dawlad ka jirna aniga dawlad ka aan ka mas'uuliin madaxweynayaal ka oo wixii la kala dhacay wixii la kala dilay wixii la kala kufsaday wixii dhaca aan xalinayni intaan aniga soo gaarsinay inta nabadda aniga soo gaarsinay meel naaga dhacmeen laakiin tan waxaan leeyahay doorashadan حر أو قف ولا بقى فكر كيس يبنى جبر إيويل لو سميه ولا لا أتكاد يجت لا عن كاسينه ما يعني جبر إيويل بالله ترتبك لو سميه ساس هو تقول لمين يعني وحاول هذا نراتمت وحي أنكو سو هو جينو قرص كانوا كبحينين موبيل الله تو عليه دقيسه لما كاد عادي يسيه كاد يسيه التلفون كاد يدي أنا أتكس أنا هبل عقاتي نمت جرنينين إنس كديرايو إنس يعني واحد وناسهم كوجو درايو كاركادة وهبل أنا بقول هذي ده قعدت كها حافظ دور ولا سومر مري هبل عقاتي وهبل أي محاجين قريه محاجين تلفون محاجين ما بقى كان كديري ما كلا قرنا واسي ودنا هذا وعارض مدحوين سرير القوة ولا سوى هيرك 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 سرير القوة ما حاول كنا خسوته مدحويني حافظ وأكبري هبر سواك وابل قف مال الله ما يجي الله صعد قف كل جينا وابل يقنا بمرك وحلير هلا درين بقى يقلب هبين كي بلا تمية وردان محله تم ولا درين كوعوادتك وأخوجرا أو وحلو نيهاي أو لو سميهاي أو عدالة وعلى اللي بيح سجد نجود درات كيس أبدا ترى كور
meel qofkii loo wada adoon meel ku camal gudaha hebel loo wadaa laagana dhabayna ma isku aamini karaa waa maya marka waa aamin darada waxaa keentay xusbiyadana hadda xusbi aad sheegaysa haddii dad awliyo oo buubuub haddayna soo galaan hataa laisma aamina dad oo samada hadday awliyo ay soo daadato hebel waa xusbi saan aan loo raacay ilaa nibal xanuunka iyo dhibkaas hor yaalas arkaa xasbi waxaan u naqaanaa annaga aan soo gaarin dawladda cabdirashiid cadan cadde ninka la leeyahay maxamed siyaad barre waxaan u naqaanaa inaad xor noqoto cid allah cid rabta aad dooran karto oodan lagu qasbin ninkaad rabto macaardi maxaafad aad ku dooran karto laakiin ma u jeedna hadda waxaas mana dhowbo waxay ka intaas ka imaan kartaa horta waxaanoo dhan maxaa keen horta maba la heshiininba 33 sano lama heshiinin 33 sannadood wixii la isku bardoodiyey wixii la iska dhacay wixii la iska kofsaday guryihii la iska qabtay dhaawacii dhimashadii nin walba hortiisay taalla maba la is cafininba gogol nabadeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inta la waco la isu fariisiyo la isku cafiyo la yiraahdo maxaa noo dan war dalkeena ma burburinaynaa ma soo dhisanaynaa guddi xaqiiqo oo nabaddaas ka taliya horta nabadiiba la soo qodan nabadda in sida loo qoday u baahan tahay saraad 10 dabaqo iskor saaran 10keeda kale hoos loo qoday si ammaanka ay u gasho ay dumin dhibaato kale ay ugu dhicin waa la adkay marka anaga waxaan u baahannahay nabadda Soomaaliyeed horta in ceelka loo qodo oo la soo dhiso oo gabar iyo wiil loo sinaado cadaalad ay noqoto muwaadin walba xor nimo ahaado anaga waddanka u dhalan meel agama socono hadday kii dhinta usgala lagu duugaa meel kale lama geyna laakiin hadda fikirka kala duwanaansha ma uqdada dadka kala gash mana la daawooba idoo uqdadan si kaasadaan ah isaga loo dhigan gabdhaha gabar loo xiray musuqmaasuq meelaysanad ila leeyahay dawladda ku jirtay wasiir ahayd lacagtaas ku fakatay ama ma raggaas ay ninkaas ay shaqada dulayso barnaamijkaas qabsada lacag loo dulay maya xasha Allah gabdhaha haddii shaqada loo dhiibo wasaaradda loo dhiibo waa soo baxay ayuu cadaalad oo qoys iyo qabiil mid u shaqeynayeen qoysna uma shaqeeyaan qabiilna uma shaqeeyaan waa cadaalad wixii loo dhibay ka shaqeynaysa xaq waxay u leeyihiin waxaa ninkaan warqadan saan oo qor saan oo saxiix wadada xaq ay leedahay sidii ma dhaafiso laakiin ragga marka tiraada war wasaaradda imaan dan iga gashay waxa lagu leeyahay asagoo jooga lagu leeyahay ma joogo aniga xaq waxaan u leeyahay wasaaradda nin Soomaaliyeedna oo dhaqameedna ummadda Soomaaliyeed dhan waa sumanta meel alla meeje dawladda ay leedahay dhan in gali karo kala bixi karo oo xaq aan leeyahay ka dhicin karo asoo jooga leeyahay ma maanta wasiirka ma imaan aadir ka leex baajadas xagga ka leex laba iga dambaysa imaani waa ku jira hor soo hore cid ma gal waa ku jira ya kharsa ninkan waa cidiisa ma ogtahay waa ku suusuga intaas ka imaad ku suusuga adiga waana ku jira marka runta la ilaaliyo wax loo siman yahay loo dhan yahay alla keeno wali ma imaanin cadaaladda maxay ka dhiman tahay in horta hore dib heshiisiin culus dib loo gadoomo in xukun jaceelkana la iska dhaafo horta dhalinyaro siyaasad in laga qayb galo oo ama haween ha ka qayb gala ama dhalinyaraha ka qayb galaan kuma ay dhimaan dhaanteedii dhedheel kacaankii Faransiiska iyo kacaankii warshadaha ee qarniga 17 dhiig badana u daatay waxa dagaalamayna waxay ahayn haween oo liiro xuquuq ma leeyihiin ma hadli kartiin dhalinyaro la dhahay siyaasadka ma hadli kartiin oo wadaadda yar oo Katoliga ama wadaadda yar oo kaniisada u xiran yihiin heesta siyaasaddu banaanka la soo istaagay dhagax tuur iyo waxa loo galay banaanbax nabadeeda la dhigay mid dhiiga daatay 100 sano waxa dareemaa inuu ku soo jireen adikii ugu dambeeyay Faransiiska oo kacaankii Faransiiska iyo kacaankii warshadaha inuu bedelay ra'yiga dhalinyarada markuu bedelana waxay noqotay heer dagaalkii labaad ee dunida in la dhaho war dal Ingiriiska la yiraahdo dagaalka ku jira ra'iisul wasaarihi hogaamiye yaa hogaami karo George Westel inuu yahay maleeha in loo wacay asagoo nin military South Africa wariyeeso ahaa military South Africa soo shaqeey ka soo badbaaday wala badan soo qabtay inuu qabtay tala Ingiriiska oo dagaalkii labaad ee dunida ka sabata bixiyay dad ha u laayo xasuuq dhibaato u geystay laakiin inuu ka sabata bixiyay asoo nin dhalinyaro rag dhalinyaro badan soo hogaamiyay siyaasadaha dunida reer galbeedka da ka tagno islaamka fiirino islaamku markuu aasmaya wax aasaaso udub dhaxad u ahaa waa dhalinyaro daayirka ugu horeeyay Ali bin Abi Talib oo ahaa islaamay Abu Bakar markuu islaamay in iska 30 jir meelaas oo ahaa siyaasadda nabiga fikirkiisa xambaareen ayagoo dhalinyaro u badan ay wixii kula gorgortameen dawladihii dunida jiro ka ilbaxsanaa Roomaanka iyo Byzantiniinta ilaa Istanbul ilaa Rome geeyeen ayagoo islaam wada xambaarsan marka waxa dhila fikirkiina
ra'yigiina iyo doodiina inta xambaartiin adikoo oday ka gambeen adeerkeyga nabadoon aad ka gambeen inta xusul ku dhufato toos u sii socoto ka qaadan karta talada gacanta asaga ku hayo ka marooqsan karto waxaan dhidhiil kuma imaan qolo walba maalin meel ka bilowday xarig isku dhiibna inuu noqdo meesha laga sii hanqaado si loo gaaro hadafyada iyo wax aan leenahay